Asxaabta waxaa iloobay ayaa horeed inaan degnayn niiga siiyay sambuuska. Waxaa degniintaas ka iloobay in aan iska badin anfurka. Maxaa yeelay maanta dan ayaa soomneed calooshaada waxaa laga yaabaa in ay baahidu qowdo. Baahida inay qowdo waxaa ka wada micnaha caloosh inay baahida la qabsato. Haddii caloosha mar baahida la qabsato, badar walba la geliyo waxba kama tarayaan. Marka anfurka haddii la iska badiyo dhibaato weyn ayuu leeyahay micnaha. Marka anfurka yaa la iska badin ayaa dhihi lahaa Ramadaan Kariim kulli caam antum bikheer. Anaga hadda anfurna alxamdulillah. Insha Allah muuqaal waa ka soo sameyn doona insha Allah biri subaxii saacad markay tahay 12 waxaa filataa cuntooyinka habboon in Ramadaan la cuno iyo cuntooyinka aan habboonayn. Hadda ciwaankeenu waxaa waaye Ramadaankii micnaha xilliga anfurka yaa la iska badin cunto. Dad waxaa jiro anfurka cuntada iska badiyaan ay caloosha taagmato. Haddana casho sii cunaya markay taraabiixi mashaadka imaadaan. Subxaana dadkaas maxaa ku tilmaami karnaa xayawaan meh. Hadda anfuraya hadda ee ka kacay meesha. Insha Allah dhimay taraabiixi soo tukada cashay sii rabaan. Micnaha kuwaas am waxa u arkaa in ay soonk rabaan inay haweenka inay badar iska darjiyaan oo ay dilqaan ee soonku adkaysan laakiin sida soomulu adkaysado. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa loo bilaabaa biyo iyo timir. Markii cabaar la joogo 15 daqiiqo ka bacdi markii la joogo ayaa cuntooyinka kala la cunaa. Adigu iska badiyeen. Soonku waxaa ruugu diiday in cuntada ah malaayga. Malaayga waa loo diidayaa. Sambuuskana waa ka soo hadlay. Sambuuska anfurka ma la ogolo. Anfurka dib waa cuni kartaa laakiin anfurka hore sambuus ma la ogolo maxaa gaas ku